Doorasho qaadatay waqti dheer iyo isjiid badan ayaa waxaa lagu doortay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya haatan aan idinla hadlayo ayayna xalfadu ka socotaa daawadayaal Bomas of Kenya oo ah meesha lagu tirinayo codadka hase ahaatee waxaan rabaa guushiisa iyo sidoo kale sida Kenya looga dareemayo intaan fiidiyoyaasheeda idinla wadaagin inaan sidoo kale idin sheego daawadayaal in dagaal aad iyo aad u badan uu ka dhacay meesha intaan lagu dhawaaqin madaxweynaha sidoo kalena mar gudoomiyaha guddiga doorashooyinka la xanimay laftirkiisa gudahana la diiday inuu ka soo baxo iyadoo meesha sirdoonka Kenya DCI loo yaqaan ay la wareegeen sidoo kalena guddiga doorashooyinka afar kamid ah ay banaanka kore afaafka meesha doorashadu ka socotay tirinteedu ay daawadayaal ku qabteen ayagoo TV-ga la hadlay sidoo kalena sheegay wixii meeshaas ka dhacay inay xor iyo xalaal ahayn sidoo kalena ayagoo ay qayb ka ahayn oo gooni ka yihiin taasoo isla markiiba daawadayaal siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka Kenya arrimaheeda daneeya ay Uhuru Kenyatta ku eedeeyeen wixii meeshaas ka yimaada mas'uuliyadiisa inuu asagu qaadi doono ayadoo isla markii la fasaxay in lagu dhawaaqo madaxweynaha sidoo kalena isla markiiba ciidankii indhaha u xiraa iyo sidoo kale sirdoonkii laga saaray meesha ayaa waxaa soo galay isla markii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukate ayadoo si sacab diiran lagu soo dhaweeyay sidoo kalena fadhiga looga kacay ayaa daawadayaal waxa uu isla markiiba yeeriyay meesha intuu tagay doorashada iyo qaabkay u dhacday iyadoo la arkay William Ruto madaxweynaha haatan la doorto aad u dabaaldegay sidoo kale shacabka ayaa magaalooyinka Kenya isugu soo baxay iyagoo wadooyinka ka daawanayay dabaqyada fuushan sidoo kalena wadooyinka aad iyo aad uga soo dhaweynaya 7,150,000 ayaa daawadayaal dooratay waxaana laga dareemay dalka oo dhan sidoo kale guushiisu waxay noqotay mid taariikhi ah iska qabsi iyo sidoo kale mucaaradkii laga guuleystay oo sheegay laftirkoodu inay maxkamadda aadi doonaan ayaa daawadayaal haatan ka socota magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyo sidoo kale dhammaan gobolada ay ka soo kala jeedaan sidoo kalena waxa daawadayaal isla markiiba Wafula Chebukate uu sheegay in guushan dhinacyo badan ay taaban karto wuxuuna sidoo kale sheegay inay wax walba online yihiin sidoo kale ayagoo iskaan garaysan warqadaha lagala socday buu yiri bogga aan ku leenahay Facebook iyo sidoo kale warbaahinta oo dhan waxaa sidoo kale jira in William Ruto isla markiiba uu khudbad meesha ka jeediyay uuna waxyaabo badan sheegay daawadayaal asagoo sheegay in mucaaradka ka soo horjeeda ay laabta qaboojistaan sidoo kalena aysan jirin buu yiri dawladaydu cid ay dabagali doonto laakiin dadku waxay isweydiinayaan dagaal ma dhici doona ama la baqsan yahay maadaama ilaa maanta ay jireen mudaharaadyo iyo sidoo kale isku soo baxyo laga dareemayay labada gobol ay ka soo kala jeedaan labada nin ayadoo aadna daris uga ah xuduudaha qaarkood 2007 ay badankood meelo isku leeyeen iyo 2017 ayaa daawadayaal waxaa la leeyahay haatan dagaalku ma sii socon doona ma joogsan doona iyo sidoo kale Kenyaanku hor ma u socon doonaan oo laftirkoodu ma noqon doonaan kuwa ka gudba arrintan maadaama aan ognahay inay Soomaaliya iyo sidoo kale dalal kale uga fiican yihiin marka ay noqoto dalkooda inay ka kaftamin asaahate haatan waxa khudbada wali wada oo sidoo kale daawadayaal si toos ah ay dadku ula socdaan sida u jeedaan halkan oo ay u daawanayaan madaxweynaha la doortay ee ninka la yiraahdo William Ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu noqonayaa ninkii ugu horeeyay ee danyara ama sidoo kale nolol baadiyay iyo nolol faqirnimo ku soo koray ayuu daawadayaal noqonayaa oo dalkan madaxweyne ka noqda anagoo sidoo kale barnaamijyada soo socda taariikhdiisa nololeedkiisa iyo qaabka uu u noolaa daawadayaal halkan ku soo qaadan doona taasaana ka dhigi doonta in laftirkiisu uu noqday madaxweyne saameyn kula Kenya sidoo kalena Kenyaanku ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen oo ay aad ugu faraxsan yihiin qaabka uu guusha u helay iyo sidoo kale qaabka ilaa haatan uu wado ninkan haatan gacmaha taagaya ee aad u jeedaan ay lagu qoslayo gadaal ka taagan ee ninka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka haatan gadaashiisa maraya ayaa waxa uu yahay David Wahiga Mahure oo asagu ahaa ninkii la tartamayay ama William Ruto mar horeba sheegay inuu taageersan yahay asagu isagana haray doorashada ayadoo ninka la yiraahdo Professor Wachakoya asagu uu ka harin tartankana uu ku jiray hase ahaatee daawadayaal haatan Kenya waxa dadka qaarkood ay ka dareemayaan farxad aad iyo aad u sareysa ayadoo warbaahintii shalay diiday inay doorashada soo gudbiso sidoo kalena diidanayd guusha inay aragto William Ruto haatan ay soo qorayaan madaxweynaha shanaad ay meel walba ku soo qoranayaan sidoo kalena ay aad iyo aad ula socdaan hase ahaatee William ninka la yiraahdo Raila Odinga iyo kooxdiisa ayaan la ogeyn waxa ay sameyn doonaan sidoo kalena qaabka ay u dhaqmi doonaan ilaa haatan lama oga maxkamad ayay aadi doonaan maxkamaddu hadii ay diido laftirkeeda dalku wuxuu gali doonaa qalalaase iyo sidoo kale dagaal aad iyo aad u sareeya taasina ay ka dhigi doonto inay yeeli doonin laftirkooda ninka la yiraahdo Ruto iyo kooxdiisu intaba Raila wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay Kenya ee tartamo 5 taamna laga guuleystay ayadoo daawadayaal haatan isku dardarka ninkan intuu tartamayo ay tahay 20 sano oo gow ah maadaama haatan asagu uu noqonayo ninkii ugu horeeyay intaas oo jeer tartamay sidoo kale ku dhacay oo intaba ku dhacay oo ku guul dareystay ayaa daawadayaal waxa uu noqonayaa in ilaa haatan uu noqdo madaxweyne
ama sidoo kale haatan ka horna isku magacaabay madaxweynaha shacabka uu isdhaariyey uu meelaha orday sidoo kalena uu daawadayaal hadhow iska soo laabtay iyadoo la ogyahay William Ruto haatan haddii la ansixiyo inuu asxaan ka heli doono sidoo kalena uusan ahayn sida Uhuru oo kale u dul qaadan doona haddii uu yiraahdo intuu meel tago waan iscaleema saaraya ama sidoo kale aniga laftigay waan isdooranayaa taasina waxay noqon doontaa daawadayaal midda ilaa haatan inta la ogyahay ka dhigi doonta arrintan ayada ah kana dhigaysa in dalku uu sagelin qalalaase haddii Raila uu go'aansado inuu dalku qalalaase galo qalalaasaas ayuu isaga jiri doonaa sidoo kale wuxuu noqon doonaa mid aan qalalaasaha ka dhamaan dalku hase ahaatee haatan waxay noqonaysaa inuu Raila iska tanaasulo sidii uu tanaasuli jiray mararkii hore oo kale hase ahaatee waxa la isweydiinayaa ma tanaasuli doonaa mise taamkan wuxuu dhihi doonaa waa taamkii ugu dambeysay wixii doonaya ha dhacaan ma tanaasulayo ayuu dhihi doonaayo waxa laga filayaa inuu diido arrinta iyada ah lama oga waxa uu ku kalaami doono waxa uu samayn doonana ilaa haatan lama oga Raila Odinga hase ahaatee waxa la filayaa natiijada ay horeyba u qaadaceen inta aan la yeerin inay noqon doonaan kuwa ilaa haatan sii qaadaca siina diida maxkamadna halka ka aada ayuu maxkamaddu waxay ku xukunto raba inay diyaar u noqdaan inay ku dhaqmaan ama sidoo kale ay ku howlgalaan taas ana ka dhigaysa daawadayaal in laftirkeeda William Ruto uu haatan asagu ugu baaqay inay dhibaatada iyo rabshada joojiyaan kuwa ka soo horjeeda sidoo kalena ay wuxuu yiri guusha taariikhiga ee Wafula Chebukati aan uga mahad celinayno yiri aan wuxuu yiri dhamaantan ku wada dabaaldegnaa maadaama aan nahay buu yiri dad Kenyaana aan nahay walaalo aan nahay gacal iyo xigaal waxaan doonaynaa buu yiri oo kaliya dalkan iyo dadkan inay hor u sii socdaan taasoo ka dhigan buu leeyahay daawadayaal in aan noqon doono dal horumaray oo shaqooyin badan ay noo yaalaan oo waxaan haatan ku gadaal ugu laabanama aysan jirin waxa sidoo kale la arkayay ama haday fiidiyoyo la soo dhigay ay sheegayeen in Ruto laftirkiisa aan dhahay Raila meeshii uu ka soo jeeday dadkiisa ay dhahayeen waxaad noqoto qof mar walba dhaca annaguna waan kugu daalnay maalin walba waxaad soo qaadataa istiraashadii ama sidoo kale wixii aad isaga tir lahayd oointa waa lay dhacay ayaad leedahay taamkan adoo dawladda gacan ku siinaysa haddii lagu dhacay weligaa madaxweyne ma noqonaysa ayay leeyihiin waxayna dhahayaan sidoo kale systemka ayaaba adigu ku diidan oo adi madaxweyne inaad noqotid ma lagu ogolay leeyihiin waxaan sidoo kale daawadayaal maalin dhoweed arkayay meel la soo dhigay in aabihiis Raila laftigiisa uu habaaray oo uu yiri heli maysid madaxweynenimada anaa raadiyay anoon helin baan ku dhimanayaa adiguna heli maysid biidnillaahi baari buu yiri hase ahaatee lama oga wuxuu ereyga ka waday maadaama asagu uu in badan la dagaalamay Moi oo xabsi inta geliyay xabsigiina ku dhintay asaguna wuxuu yiri ma heli doontid aabahay islu goyn hase ahaatee waxa muuqata inuu diiday waanada aabihiis oo uu ku madax adeegay taasoo 5 jeer uu ku dhacay uuna noqday haatan aabaha guuldarada Afrika iyo sidoo kale qofkii guuldarada lagu soo xasuusan doono daawadayaal video ku xigta isugu maan doono waxaan idinkaga tagayaa meel walba joogtaan karaam korkina aad waxaan sidoo kale idinka codsanayaa inaad channelka subscribe dhataan kambaleel kala furataan siina shargarisaan muuqaalada idinkoo la wadaagaya asxaabtiina waxaan idinkaga tagayaa intaan kan xiga isugu maan doono